cashirkan wuxuu ku saabsan yahay topic aad iyo aad u kulul. Detail targeting waa topic oo macnaha asi keligiis ayaa koorsooyin laga sameeyaa. Marka aanan ku dheerahaynin waxaan rabaa detail targetingka in aan kusoo fududeeyo oo qaabka ugu fudud oo macnaha aad ku fahmi kartid oo macnaha markaasna aad u isticmaali kartid inaan kusoo gaabiyo, sababtoo ah si keligiisa wax iska qaadan karaa 24 saacadood inaan ka hadalno. Marka ma rabo inaan adna waqti kaaga lumiyo oo 4 saacad ka hadlo iyo 5 daqiiqo ka hadlo. It makes no difference because meeshan waxa waaye meesha aad ka target garaynaysid dadka rabtid inay wax ka iibsadaan ama aad rabtid in wax ka gataan. Meesha aad ka target garaynaysid waa because Facebook qaabka ku shaqeeya waxay tahay interest targeting waxa la yiraahdo. Waa dadka oo interestka macnaha ku ama aad isleedahay because maadaama Facebook uu yahay interest based software oo interest macnaha dadka ku kala saarto. Kaba soo qaad markii aad Facebook furatay, waxaad aaday Facebook aad furatay account, waxaad u sheegtay inuu dhaho Cabdiraxmaan Cali Muuse for example. Kadib waxaad dhahday da'deedu maalintaas aan dhashtay, numberkayga waa kana, emailkaygana waa kan. Kadib intaas ayaad siisay. Intaas ayaa horta waxay tahay information oo enough cool, because your best friend qofka saaxiibaatiin iskaba dhaafe lamaanahaaga ama xaaskaaga ama xataa inayna aqaanin laga yaabaa intaas ayna garanaynba amba horta meesha ugu bilaadaba meeshaasna waa enough information kadib waxaad samaysay markii aad Facebook aad furatay oo picturekii waxaa gelisay, waxaa bilowday in aad video iyo aad ku noqotid macnaha aad fiirisid, aad picture aragto, aad like dhahdo, qaar aad comment dhahdo, qaar aad macnaha video aad fiiriso oo macnaha wax kuwas qortid, qaar share dhahdo. Markaas Facebook wuxuu baranayaa behaviorkaaga iyo macnaha wuxuu pocket ama jab waxaan ka sheekeynaynay oo macnaha gaar ayaad galowsaa wada adoon ogeyn. Waxaad kamid noqonaysaa audience ama dad oo specific wax gaar u jecel. So marka Facebook marka hore go'aan kama gaarayo, wuxuu sameynaa marka anoo kale oo marketer ayaa waxaan leeyahay detail targeting. Waxaan soo target garaynaa qof hebel oo intaas sanadkiisu yahay meeshaas degan, macnaha oo dumar iyo rag iyo dumar wax walba iskugu jiro, laakiinse jecel guryaha, properties, in luxury houses, waxaas in guri loo dhiso qurxoon jecel ayaan target garayay marka. So marka Facebook marka waxaa laga yaabaa in video qaar adiga aad like dhahday ama share dhahday, ama macnaha maadaama aniga hadda waxaas aan soo target garayay in uu asiga isleeyahay bal ku fiiri haddii uu macnaha jecel yahay guryaha cusub iyo guryaha qurxoon iyo dayactirka guryaha iyo waxaas. Haddii marka aad xayeysiinteeda aragto oo like tiraahid oo kadibna aad linkiga ku dhufatid, guarantee marka Facebook wuxuu gelinaa dadka oo guryaha cusub iyo waxaas jecel. So berri qof kale hadduu detail targetingkan camal uu sameeyo oo asna soo target gareeyo dadkaas oo kale oo guryaha jecel, waxaa ka mid tahay dadka oo dambiisha ku jiro oo guryaha iyo waxaas jecel oo kugu daray. Wuxuuna kugu daraa sababtan waxay tahay because videoyadii aad jecleed oo hadda kor aad fiirsi jirtay iyo macnaha oo ku judge gareynaa, ama picturedii aad like dhahday, wixii share dhahday, meeshaas ka imaanay marka detail targeting. Kadibna macnaha xayeysiin aad aragtay oo meeshaas oo macnaha specific oo waxyaabahaas oo aad jeclaa jirta camal ku saabsan ayuu ku tusay Facebook. Marka ku tusana waa ku dhufat, kabacdi maxaa dhacay? waxaa tahay qof jecel guryaha iyo waxaas. Haddii makeup aad jeceshahay saasuu kusoo saara, haddaa beauty jeceshahay saas, haddii fitness jeceshahay saas, haddaa health jeceshahay saas, haddaa vegan tahay saasuu ku fahmaa Facebook. Marka maadaama uu saas ku fahmaayo, markaan sameynayn aniga marka detail targeting waxaan sameynaynaa waxay tahay in aan sameyno inaan la imaano horto macnaha maxaad jeceshahay. Marka maadaama anaga aan Soomaali aan ku qorayna meeshaan, waxaa laga yaabaa Facebook inuuna fahmin. So hadda haddii aan imaano websitekeena oo aan fiirino wax websiteka noogu qoran, kaba soo qaad waxaan dhahnay shirkad dhismo. So haddii hadda aan dhaho shirkad dhismo kale aan copy soo dhaho
Facebook imaado shirkad dhismo meeshan ku qoro Facebook ma fahmayo haddii aan dhaho dhismo keliya ma fahmayo Facebook because waa different language laakiinse haddii aan meeshan imaado oo markaas aan dhaho guryaha dhismaha oo kale haddaan dhaho builders oo kale ama builder oo kale haddaan dhaho macnaha wixii usoo dhow oo itusaa macnaha a builder home improvement hadda meeshan aan ku dhufo karo haddaan dhaho home improvement oo kale haddaan meeshan ku dhufto Facebook wuxuu leeyahay okay home improvement okay macnaha wuxuu fahmaa in macnaha aan dadka aan rabo yihiin dad oo macnaha home improvement iyo waxaas jecel oo in guryaha ama loo dhiso ama guryaha ay macnaha ay derbiga ay macnaha rinji nooc kale iska mariyaan ama ay tileka iska bedelaan ama ay roog cusub soo gashtaan wax kasta adiga home improvement ku saabsan haddii rabaan xataa gardenka loo sameeyo macnaha Facebook marka wuxuu leeyahay home improvementgaas dadka aad macnaha meeshan joogo xaafadan da'doodu ay tahay waqsan oo home improvementga jecel wuxuu leeyahay waa reachka oo potential reachku waa 120 so marka Facebook dadku wuxuu ku gaadaa marka reachkaas dadku ku gaadaa Facebook because Facebook wuxuu rabaa inuu lacag sameeyo Facebook social waaye waa meel oo social oo macnaha baraha bulshada aan u naqaano laakiinse macnaha 99% Facebook is business waxa waaye meel oo business bis wax inta kale waxa waaye dadka aniga inay dhacsinaa inay social media taa laakiin waa meel oo lacag bis loo furtay oo lacag lagu sameeyo ganacsade haddaa tahay oo macnaha ganacsigiisa maantay markuu Facebook fahamsan si wax loogu xayisiiyo oo macnaha maantay suuq inta soo galo Facebook xayisiin si loo sameeyo saxda yaqaano cid aad tugaysid male qofka suuqa kuula soo galo 90% waa macnaha dhulka ku jiiday haddii aad fahamsan tahay Facebook ads so macnaha Facebook ads ku waa powerful waa meel oo caadi ahayn so marka home improvement ku dhuftay haddii aan rabo marka wax adig u dhow oo interest oo macnaha interestka macnaha home improvement u dhawaa karo haddaan rabo inaan raadsado marka waxaan leeyahay markaas meeshan suggestions ay ku qorantaan ku dhufanaa laakiinse intaana ku dhufan Facebook reachka ay siinayaan waa 120 sababta ay siinayaan waxay tahay meeshan ay waxay sameeyeen waxa la dhahay expandka marka wuxuu yahay reachki ay macnaha xogo ay badinayaan dad kale oo pocketyadooda ugu jiro ama jeebabkooda ugu jiro waxbay isku kaydardareen marka haddii aan meeshan antig aan ka saaro reachku yaraanaa sababtoo ayaga rabo inay macnaha hawada geliyaan so from 120 to 1000 hadda marka haddii aan ku celiyo reach aan mar labaad haddana ka saaro waa arki kartaa marka Facebook so hadda marka maadaama home improvement iyo meesha aan area aan dalbaday haddii hadda area marka aan iska bedelno maadaama meesha anaga aan wax ka xayisiin doono ay tahay Soomaaliya specific area ay tahay maybe hataa inaan ka dhigna laga yaabaa Banaadir so haddii aan dhaho kale Banaadir Muqdisho Banaadir so hadda meeshaan oo kale Banaadir Soomaaliya iyo Muqdisho Banaadir haddii aad rabtid inaad kala ogaatid what difference maxaa u dhexeeyo ku dhufo marka ku dhufatid waxaa fiirisaa bis potential reach ka fiiri sometimes Facebook waxa adigu malaynaysaa wax kale oo soo saaraa meesha Banaadir Muqdisho so ani Banaadir Soomaaliya taagana Banaadir Soomaaliya oo aragtaa meesha sirtaa waaye so marka hadda oo macnaha oo Facebook soo saaray Banaadir Soomaaliya potential reach ku waa 1000 so marka 1000 saan ugu badi karnaa marka 1000 macquul maahan waxa laga yaabaa in ay tahay kow age-ka meesha naga haysto waaye kow labo home improvement-gaas inay macnaha dadka home improvement-ga iyo waxaas jecel oo Facebook u malay inay jecel yihiin inay macnaha wax keer 1000 yihiin so marka haddii aan dhaho kale suggestions aan ku dhufto kadib aan ku dhufto home improvements with the S Facebook caadi ma hadda macnaha S taasoo macnaha wuxuu ka dhigaa different
wax oo wuxuu igaaga dhigaa oo macnaha different home repair ku dhufo, interior design, home construction. macnaha waa un same waa isku dhow yihiin, industry isku dhow waa macnaha waxaan dhan waa isku wada mid. haddii hadda marka aan construction ku dhufto just markii hore waxaa laga yaabaa maskaxdeyda inayna markii hore ina soo qaban isku markii home construction, laakiin aan markii aan xoogoo sii wadwado aan exactly interest aan isleeyahay waa kaas loogu talagalay waxaad samaynaysid inay meesha igaaga soo baxdo. marka homaantin oo kale, so ani hadda waxaan ku dhufanaynaa interior design oo kale ku dhufo, kadib viewerka wuxuu isku bedela hadda 110. so marka waxaan sameynaa markaan raba inaan xayisiin sameeyo aniga oo kale, waa in xayisiintaas macnaha potential reachku at least especially markii Soomaaliya aan wax ka sameynayo 100 at least waa inay 100 ay ahaataa haddayna ka badnayn. haddii ka badan tahay ama okay dib magu hayso, laakiin haddii ay ka yar tahay waa inaan markaas u raadiyaa interestyo kale oo kala nooca ay macnaha 80 aan soo dhawaa karo. waa markii ay macnaha ay tahay wax la'aan ay u dhacda markay taa waay. so marka hadda maadaama aan meeshan home aan sameynay interior design aan sameynay, waxaan sameynaa marka haddana waxaan raadinaa DIY oo kale, furniture oo kale. waxaan sii fiirinaa marka dadka aan isleeyahay waa dadkaas waxba iibsan karaan oo u dhow oo macnaha suggestions ka sii fiirinaa. haddii yartaa waa macnaha saasaan usii daraa. waxaa soo hartay meeshan oo la dhaho narrow audience. haddii aad isleedahay 110 waa bit too much, waxaan rabaa inaan narrow down sii sameeyo oo macnaha aan sii yareeyo dadka aan gaarayo, laakiin interior design iyo ay u dhadhawaadaan. so markaan oo kale waxaa ku dhufanaysaa meeshan ay ku qoran tahay narrow audience. marka ku dhufatid engage shoppers oo kale ku dhufan kartaa meeshaas oo kale. sometimes engage shoppers marka ku dhufatid waxaa arkaysaa in ay macnaha ay ku soo baxdo dad oo badanaa adiga dadka badanaa wax iibsado waayo oo Facebook macnaha oo ku dhuftaan badanaa waxay siin markay arkaan way ku dhufsadaan, way wacdaan macnaha engage shoppers macnaha waxa waaye dadka oo Facebook ay badanaa xayisiinta tusaan, oo markay xayisiinta arkaan isku markii reaction ka sii baxshay ama comment ku qoro ama qafkii waco ama leadkii macnaha soo diro ama alaabtii gito. macnaha engage shoppers macnaha waa meesha kasii narrow gari karta ama kasii yarey karta dadka aad target garaynaysid waaye. I hope inaa fahamtay targetingku waxa waaye waa cashir oo aad iyo aad u adag, laakiinse haddii aad fahamtid very easy macnaha in aad macnaha dadka aad target garaynaysid aad quickly aad keentid. ani marka haddii aan rabo inaan macnaha isku markii aan targeting aan sameeyo kale oo aan rabo inaan macnaha aan soo helo kale, for example waxa aan iibinayo kale. so hadda meeshan oo kale haddii aan cosmetic iyo waxaas oo kale aan iibinayo kale, haddii aan meesha hadda ku qoro kale eyelashes oo kale, Facebook waxaa laga yaabaa inuu isku markii uu wax keeno ama u dhow. haddii aan rabo beauty oo kale, meesha markaan ku qoro beauty inuu tartiib u soo saaro. marka adiga waxay ku xiran tahay wixii markaas aad iibinaysid iyo 340,000 oo hadda marwaya macnaha beauty oo banaadir I think. so the whole city loves beauty marka okay. targetingku waxa waaye 90% haddii meeshaan ka weysid waxaa samayn kartaa waxaad tegaysaa Google, aad tegaysaa kadib waxaa fiirinaysaa waxyaabaha aad meeshaan aad ku iibinaysid oo website-kaaga ku iibinaysid. haddii marka aad inaad iibisa rabto guryaha oo kale, inaad dhistaada guryo dhisto kale, waxaad dhigi kartaa oo kale macnaha Google oo kale aad dhigi kartaa ID ahaan aad soo qaadan kartaa builder name oo kale aad tagtay. kadib macnaha marka meeshaas tagtid oo kale wuxuu ku tusaa marka Google xayisiimo oo businessyo oo wax iibin macnaha ku saabsan builderkan oo kale. so marka haddii hadda meeshan ku dhufto oo kale company-gan oo kale, sorry waa xayisiin laakiin waa ku dhufanaa iskuna custom lacag. waxaan sameynaya marka meeshan oo kale markaad joogtid Facebook, maadaama aniga hadda aan raadinayo ay sheeg interest wixii meesha aan ku qori lahay inaan raadiya laga yaabaa, oo macnaha aan rabo inaan builder oo kale iyo qaabka ugu dhow oo xayisiintaas aan ku target garay karo dadka aan rabo inaan target garayo. sometimes waxaa laga yaabaa marka compare builder oo kale, okay building bla 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 waxaas oo kale inaan macnaha ay noqdaan
interest oo kale, especially waxyaabaha interestka laga helo badanaa waa marka aad sameynaysid oo kale alaab markaad gedaysid oo kale online-ka oo kale hadda yoga oo kale alaab oo yoga ku saabsan oo kale aad gedaysaa oo kale. So marka aad yoga shirt oo kale aad gedaysid oo kale ama t-shirts ama whatever, waxaa laga yaabaa marka hadda in aad isku marka aad heshid wax loogu talagalay macnaha isheeg detail targeting oo loogu talagalay yoga niche waxyaabahan oo yoga ku saabsan yoga dadka macnaha yoga sameeyo kale. So hadda haddii meesha imaado kale macnaha waxaa laga yaabaa inay iga dhamaatay in aan sameeyo isheeg hadda ka soo aad finaadaan oo kale aan gadaayay workout tops, wax aan weligii ku fikiri lahay maaha inaan macnaha ka dhigto detail targeting. waxaa laga yaabaa marka in Facebook uu macnaha in waxba u weyn hadda, laakiinse markii aad si fiican usii babaartid aad ku aragtid in aad heshay targeting oo aan caadi ahayn oo macnaha tii aad iibinaysa naftigeeda dad jecel oo fara badan in aragta laga yaabaa. So hadda Expedia tii I don't even know what that is. Telephone mia is a company yes my okay. marka haddii aad detail targeting meeshaas aan ku sinno I hope inaa fahamtid. haddii oo macnaha meesha oo waxa ku qorida ka dhamaadaan idea waxaa laga soo helaa niche-ka meesha wax ka iibinaysid waxyaabahaas, you get more word. marka wordka soo heshid oo kale hadda home improvement yaan helna anaga, home improvement marka helna waa sii socon, interior design aan kasii dhaxalna waa sii wadna marka waxaa laga yaabaa inaad heshid ilaa 6 interest oo isku same area oo haddana same targetingkooda isku yahay inaa meesha ka hesho, kabacdin aa mid aad u target garayso oo mid aad u samayso. marka soo dhawaaw cashirka ku xigi doono ayaan si fiican usii sharaxi doonaa casharada ku xigo. marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.